السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارته سودو هذا ومر كله وبرنامج كله إيوه سوقي تراجع معك عصب بارمنا إن شاء الله تعالى إن أنكو أجنو أركان أما فيديو كان مانتا وما سنتين دمانتين سيدا مركزتو نودي رجلسان نقولنا نقيب قاعدتان برنامج هذا أن إذين سو جود بينه أما هذا كوا كسابسن immigration كه أما هذا كوا كسابسن حاجة تراجع وهذا مركي إن الأبديت إذا كسيو ويجان أما أسبوعا أسبوع إذا صوص عضبة محون نقون كراه أدرس لسميه حاجة تراجع business كيسة يدقال أهان سيدا ونقون دونه وها أي سادالين أيان جورنال هذا وين maxaa kale oo ay saadaalinayaan qolyaha stock marketka ama suuqa wax lagu kala iibsado ee qaybta transportationka oo qaabilsan xagga taraagyada iyo arrimahaas aan ku bilaabo waxaa la sheegayaa in ay isu soo tarayaan warar fara badan oo ku saabsan xagga taraaga oo sidoo kale sheegayo in kambaniyada ama shipperka ha noqdo oo kii wax dhoofsanayay ama ha noqdo receiverka kuwa alaabta soo gadanayay ama helayay waxaa la sheegayaa in volumeka ama loadedka hadeer ay sii fara badanayaan kambaniyadana updateki ugu dambeeyey uu sheegayo in ay isku dayayaan in ay alaabaha soo gataan oo ay dalka soo geliyaan Mareykanka inta aysan dhicin baa la yiri canshuurtii xad dhaafka ahayd ee uu soo rogay madaxweyne Donald Trump so inta uusan canshuurtaas aysan dhaqan gelin waxa company walba uu isku dayayaa in uu helo in stock ku filan uu helo si uusan canshuur badan u bixinin so hadeer waxa la sheegayaa in suuqa taraaga xoogaa uu kor u soo yarakacay xagga markay noqoto lacagta wax lagu qaadayo iyo volumeka ama xadiga tribyada ay helayaan trackerska waxa la dhaxmaraya kambaniyo fara badan in boqolkiiba wax yar sida drive-vanka oo kale tribyada uu ku qaadi jiray baa la yiri $60 hadda marka loo fiiriyo sanadkii hore hadda ay xoogaa kor u soo yarakacday oo $64 milekii uu ku qaadayo marka laga reebo baa la yiri xagga lacagahan yar oo fuel surcharge loo yaqaano industryga traga waxa weeye 906 bilyan oo dollar buu ka yahay dalkan Mareykanka waa $906 billion buu ka yahay industrygaas laakiin waxa ay saddexdii sano oo la soo dhaafay almost saddex sano hadda u buuxsamaysaa baa la yiri saddex sano la soo dhaafay waxa ay ku jireen recession ama suuq la'aan xoog badan ayaa soo food saartay dhanka traga marka Trump xilligii uu qabsaday January 20keedii waxa la sheegayaa kambaniyada waaweyn sida Swift iyo Knight Transportation oo isku xiran oo hal kambani uu iska leeyahay iyo Central iyo JB Hunt iyo adiga ragga heavyweight ka oo culculus oo trackingka badana ka soo gudbiya informationkiisa waxa ay sheegayaan in suuqa uu soo yara kabanayay markii Trump uu imaaday asaga oo ka soo kabanayay bay yiraahdeen 2 sano iyo bar oo suuq xumo fara badan ay ka jirtay dalka Mareykanka oo ku saabsan xagga traga haddaba Trump markuu imaaday waxa uu soo rogay ama uu soo kordhiyay canshuurihii oo tariffska ahaa oo xoog badnaa canshuurahaas oo wadanka ugu faraha badan wax u soo dhoofiya dalkan Mareykanka una soo sameeya alaabaha oo dhan oo China ah ba xanuunka ugu faraha badan uu soo gaaray arrinkan uu ku kacay madaxweyne Donald Trump iyo groupkiisa waxaana ay sheegayaan qolyaha DAT load boardka oo tribyada laga qabsado waxa marka hore ay saadaalinayeen in suuqa uu rebound sameynayo dib u soo kacayo laakiin hadeer waxa muuqata
in arrinkan canshuuraha ku saabsan ay saameeyeen oo saameyn xoog leh ay ku yeesheen. waxa markay sheegayaan recessionkii laga baxayay oo ku saabsanaa xagga taraagyada suuq la'aantii iyo oo laga soo kabanayay in dib loogu laaban doono rajadii ay qabeen kambaniyada tracking-kana maaragtay hoos u dhacday oo rajadii laga qabay in laga soo kabto arrinkan sanadkan dhammaadkiisa ayaa waxaa la sheegayaa haddii canshuuraha suuqa uu ku soo rogay madaxweynaha ay dhaqan galaan in recessionkii hore ama suuq la'aantii hore mid ka sii liidata la geli doono ayay sheegeen. waxay yidhahdeen xaaladda waxay noqotay xaalad ka sii dari doonta. waxaa marka sidoo kale la sheegayaa in haddeer right now wax yar oo suuqan inuu soo kacay ah maaragtay suuqa hadda inuu soo kacay oo this week iyo next few weeks uu noqon doono volume fara badan la qaadi doono alaab fara badan maadaama kambaniyada ay isku dayayaan in ay sii staggareystaan ama waxooda ay sii dhigtaan meel si marka timaado canshuurta aysan u affect garaynin too much of it. marka waxaa marka la rajaynayaa baa la yidhi bumpy road ahead suuqa in uu xumaan doono wadada ay sii halaabi doonto recessionkii la rabay in si dhaqso ah looga soo kabtana looga soo kaban waayo ayaa dhici doonta. laakiin as of right now suuqa waxaa la rajaynayaa in haddii canshuurahan ay dhaqan galaanna uu halaabo oo uu xumaan doono haddii canshuurahan aysan dhaqan gelinna oo sida hadda madaxweynahaba uu sheegay in wadahadallo fara badan ay kula jiraan wadamo badan oo ka mid tahay China iyo ilaa 100 wadan oo kale in ay wadahadal kula jiraan. haddii uu shaqayn waayo canshuurta suuqa wuu maaragtay uu fiicnaan doonaa oo wuu soo kabanaya oo kabashadii uu waday wuu sii labalaabmi doonaa. haddii laakiin canshuurahan ay dhaqan galaan kambani kastana wixiisa uu haysto mardhow wax la qaado ayaa la weyn doonaa bay yidhaahdeen. waxaan haddaan idinku daro ninka si xukuma oo CEO-ga ka ah kambaniga weyn JB Hunt ayaa waxa uu halmar ku daray hadalkiisa aan idinku daraya. wuxuu sheegay in uusan weligiis inta uu ku dhex jiray ama tracking industry-ga ama transportation-ka iyo alaabahan gaadiidka la kala maaragtay ku saabsan iyo badeecooyinka la kala wareejinayo uusan weligii arkin suuq xumo. way dhici jirtay laakiin suuq xumo gaarta 3 sano oo isku xigta weligay indha aan leeyahay ma saarin buu yiri. kambanigaasna markii wuxuu ka hadlayay waxay ka hadlayeen marka iyada ah dhaqaalaha soo galay qarashaadka ka baxay iyo balance sheet-ka markii ay dejinayeen buu ka hadlay. wuxuuna sheegay in 3 sano recession ama suuq la'aan gaartay weligiis intuu ku dhex jiray tracking industry-ga uusan arkin 3 years wax ka badan. haddii marka canshuurahan ay dhaqan galaan 3 years way ka sii badan doontaa. waxaana la sheegay hadda ay kambaniyada isku wada raaceen iyo suuqa Dow Jones-kaba oo qaybta transportation-ka waxay isku raaceen in right now kambaniyo fara badan oo tracking ah ay wax lacaga samaynin marka laga saaro maintenance-ga ay bixiyaan oo gawaarida ay ku hagaajiyaan darawallada markay lacagtooda ay siiyaan iyo the operating cost-ga marka la bixiyo gaaska la iska bixiyo in kambaniyo fara badan haddeer aysan wax faa'iido ah aysanba ka samaynba suuqa. marka rajo xumo ay muujinayaan haddii canshuurahan ay dhaqan galaan. haddii canshuuraha ay dhaqan geli waayaanna rajada way fiican tahay.